Assalaamu calaykum dhammaantiin dadweynaha naga dhegeysanaya halkan oo aan runtii tacanihii hore aan wadnay taariikhdii Anglo-Saxonska gaar ahaan qaybtan England oo aan ka soo sheekanay intii badnay taariikhda walaa taariikho badan ay noo hadhsan yihiin waan maanta ka bilaabay Wessex ay nimankii dhidibada u taagay England dhisayna England gaar ahaan ama UK badhe ninkii ugu horeeyay ee ay runtii aad uga dambeeyaan ama ay dhahaan aabihii England buu ahaa waxaa la oran jiray Alfred Great wuxuu ku dhashay bay dhahaan Berkshire taariikhdu markay ahayd 840kii aabihii waxaa la oran jiray Helwolf wuxuu boqortooyada qabsaday 839kii waxay ka yimaadeen ama ay ka soo jeedaan Kindish ama oo ahaa ay ka soo jeedaan asal ahaan Kindish waxay ahaayeen qayb ka mid ah qabaa'iladii Anglo-Saxonska hooyadii waxaa la oran jiray Osba inanteedana Osla hooyadii waxay ka soo jeedaa Judis oo ahaa qabiil yar oo ka mid ah Anglo-Saxons Osba waxay ahayd gabadh diinta aad ugu fiican diinta masiixiga guri joog ah taqaanana habka carruurta loo xanaaneeyo Alfa waxaa la baray markuu yaraa sida loo ugaarsado waxay walaalo ahaayeen 4 inamood iyo inankii inamada ugu weynaa isagoo yar ayuu dhintay 3 inamood ee kale magacyadooda waxa la kala oran jiray Albert Heathbud iyo Heathred waxay boqortooyo noqdeen muddo yar oo gaaban xagga Alfa uu muddo dheer uu ahaa boqor waxyaabaha uu bartay Alfred Great waxaa ka mid ahaa biography accounting law iyo taariikhda Anglo-Saxonska wuxuuna ahaa nin qoraalka aad ugu fiican oo filosofi ah isla markaana noqday siyaasi aad u weyn wuxuu noqday boqorkii ugu horeeyay xagga aqoonta markay taariikhdu ahayd 850kii aabihii ayaa kaxeeyay oo geeyay Roma soo tusay qalcadihii iyo guryihii ay Rome lahaayeen boqortooyadii Rome markuu 6 jirka ahaa hooyadii waxay bari jirtay ama u keeni jirtay buuggii Anglo-Saxonska ama taariikhdii Anglo-Saxonska boqortooyooyinkii ka dhisnaa England waqtigaas waxay kala ahaayeen sida tan Peninsula Dora Sussex Wessex Mercia Essex East Anglia iyo Kent Peninsula iyo Dora waxay ahayd Northumbria ay ka mid ahaayeen Northumbria laba boqortooyo kala ahayd Mercia waxay ahayd qolada xagga aad u awood ballaaran bay ahaayeen dhul ballaaran oo santarka England way haysteen xagga waqooyiga ay haysteen nimankii la oran jiray Northumbria oo iyaguna dhul aad u ballaaran run ahaantii gacanta ku hayay meelaha ay Wessex ku maamuli jireen ama goboladii maamul jireen waxay kala ahaayeen Dover Dotsi Hampshire Somerset Wiltshire iyo Ayrshire inankii inamadiisa ugu weynaa ayuu u magacaabay oo la oran jiray Helbord oo ka dhigay ugu magacaabay Somerset iyo Bishop wuxuu uga dhigay barisaab laakiin inankii yaraa uu isku laba rogay aabihii wuxuuna isku magacaabay ama isku cimaamaday boqortooyo khilaaf baa soo kala dagaal baa yar oo muddo yar gaaban socday baa dhex maray ka bacdi waa la kala joojiyay laakiin Wessex way kala qaybsameen aabihii wuxuu dhintay 858kii Helwolf ka bacdi inankii labaad ee inamada ugu weynaa ayaa la wareegay boqortooyadii
muddo 2 sano ayuu hayay kabacdi wuu dhintay. Waxaa qabtay Helbid oo ahaa ninkii ugu weynaa ee goostay qaybta. Xaggaana waxaa ku midoobay Wessex-kii. Viking-ku doonyo yaryar ay doonyo ku soo weeraray markay taariikhdu ahayd 793kii Northumbria ay qabsadeen oo ay ka soo duuleen xaggan iyo Scandinavian-ka. taariikhdu markay ahayd baa leeyahay 865 ilaa 867 Mercia iyana way qabsadeen 868 ilaa 869 865 ilaa 867 East Anglia 868 ilaa 869 Mercia. waxayna ku socdeen xawli aad u ballaaran nimanka la yiraahdo Viking-ku. taariikhdu markay ahayd 870kii Viking-ku ayaa la wareegay dhammaan Mercia waxayna u soo gudbeen xaggan iyo Wessex. markay taariikhdu ahayd 871 waxaa geeriyooday boqorkii Helbud waxaana loo magacaabay boqortooyadii Alfred. baa markaas sidaa kula wareegay boqortooyadii. meelaha ay qabsadeen Wiltshire iyo Hampshire bay qabsadeen. Wessex oo qaybo ka mid ah Wessex ay gacanta ku dhigeen. 872kii ayuu sameeyay qaab cusub oo dagaal. wuxuu sameystay 60 maraakiib ama doonyo waaweyn oo midiiba qaado 400 oo nin. wuxuu sameystay inuu qalcado adag oo sameeyay oo aan laga soo dusi karin oo difaac adag aanay ka soo gudbi karin nimanka Viking-ku. markii ay qabsadeen meelo ka mid ah dhulka Wessex-ka wuxuu ciidamadii hore ku daray 27,000 oo nin oo cusub oo ku soo kordhay cudud military. ciidamadii Wessex-ka badda ayuu dhaqaajiyay. ciidamadii badda oo 60kii doonyood ayuu dhabar jabin kaga sameeyay Viking-ka. xagga dhabarka ay ka soo dhirbaaxeen. 834 waxay kala wareegeen dhammaan Wessex-ka meelihii ay ka qabsadeen. 836 waxay ka qabsadeen dhammaan Mercia waxaana awoodii ciidameed la wareegay Wessex-ka. eryadana nimankii Viking-ka waxay dalbadeen Viking-ku heshiis cusub oo Viking-ku ay aqbaleen Alfred isla markaana ay weydiisteen in maxaabiistii la iswidaarsado. xataa Alfred wuxuu ka codsaday maxaabiistii Northumbria iyo East Anglia iyo Mercia inay keenaan. hadee Wessex-na iyagaaba ahaaba. halkaas ayuu kula wareegay dhammaan say u dhamaayeen wixii ay haysteen oo dhan u qaatay uuna la wareegay oo uu qabsaday. kabacdi waxaa la yiraahdaa taariikhdu markay ahayd 899kii ayuu dhintay Alfred. halkaasina guushii ku raacday Wessex oo markaa haaf qabsaday iyo iyagoo qoladii la oran jiray Viking-ku ay haysteen Northumbria East Anglia gacanta ku hayeen. ayna sameysteen sharci cusub oo la yiraahdo Danish Law. Viking kasta ay run ahaantii taariikhda Ingiriiska ku sheegto waxay dhahaan waa Danish baan laakiin Scandinavian-kuna Norwegian baan. si kastaba ha ahaatee haddaan raacno taariikhda Ingiriiska saas unban raacina hadba qaabka Danish Law bay sameysteen qaybtood. marka akhyaaray halkaa maanta haynoo joogto kadib kabacdi intaan hawada mar labaad iskugu soo iman doono waxaan leeyahay sidaa iyo nooli kulantee haddii alla yidhaaho mar labaad saa iyo nabadgelyo.